kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu door karoona waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo mushaarkii ka jaratay ciidamada dawladda ee ku biiraya ilaalada xubnaha mucaaradka qaramada midoobay oo war hor leh ka soo saartay xaaladda dalka iyadoo fariin adag u dirtay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in isaga iyo Sheekh Shariif ay ka badbaadeen isku day dil dawladda Soomaaliya oo taageertay go'aan uu boqorka Urdun xabsiga ku dhigay walaalkiis markale kulanti habboon daawadayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku xasuusinaynaa inaad channelka subscribe tiraahdo sidoo kalena like asxaabtaadana aad u share garayso videoga mahadsanidin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mushaarkii ka jaratay ciidamada dawladda ee ku biiraya ilaalada xubnaha mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxa la sheegay inay bilowday in cadaadis xoogan ay saarto xubnaha mucaaradka iyadoo haatan lagu soo waramayo in ay ciidamada dawladda u diiwaan gashan ee ku biiraya ilaalada xubnaha mucaaradka ay dawladdu bilowday in mushaarka ay ka jarato mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha mucaaradka ayaa si aad ah uga cawday arintan waxaana ay sheegeen in dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta hogaamisay waqtigoodu u dhamaaday ay haatan mushaarkii ka jaranayaan ciidamada dawladda ee ilaalada u ah hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in taliska militariga Soomaaliya ay gabi ahaanba mushaaraadkii ka jarteen ciidamada dawladda isagoo sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa ilaalo u ahaa waxaana uu tilmaamay in ku dhawaad 70 askari oo ilaalo u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gabi ahaanba laga joojiyay lacagihii ay dawladdu siinaysay ciidanka lacagta laga joojiyay ayaa la sheegay in intooda badan ay yihiin kuwa ilaalo u ahaa madaxweynayaashii hore dalka soo maray xubnaha midowga musharaxiinta ee u tartamaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana badankooda la sheegay in dhawaan ay yihiin kuwa ku soo biiray ilaalada iyadoona sidoo kale la tilmaamay in ay ahaayeen kuwa ka tirsanaa ciidamada dawladda oo haatan doonaya inay ku biiraan hab beel ahaanna ay ugu biireen sida wararku qaar ay tilmaamayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ilaalo gaar ah oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo iyaguna kor u dhaafayay ilaa iyo 70 waxaana haatan la sheegay in ilaaladiisii qaaska ahayd qaar kamid ahaa ay ku soo biireen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kadib weerarkii iyo rabshadihii dhacay 19 Febraayo iyadoona mucaaradka qaarkood arintan ay ahayd kuwa ay soo dhaweeyeen balse dawladda federaalka Soomaaliya oo arintaasi tallaabo ka qaadaysa ayaa waxa ay mushaarkii ka jaratay ciidamada ku biiray ilaalada xubnaha mucaaradka lama oga sababta rasmiga ah ee dawladdu ay u qaaday tallaabada ay mushaaraadka uga joojisay ciidamada dawladda ka tirsanaa ee ku biiray ilaalada xubnaha mucaaradka balse wararka qaar ayaa waxa ay tilmaamayaan in xubnaha mucaaradku ay yihiin kuwa dawladdu ay cadaadis ku saarayso isla markaana ay kaga hor istaagayso arrimo dhowra qaramada midoobay ayaa war hor leh ka soo saartay xaaladda Soomaaliya iyadoo fariin adag u dirtay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalku uu ku jiro iyadoona madaxda dawladda federaalka Soomaaliya fariin loo mariyay hawada isla markaana ku aadanayd in arrimaha wada xaajoodka ah hore loo sii socdo isla markaana lagu socdo in dalka doorasho la gaarsiiyo war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lagu bogaadinayo xubnaha dawladda iyo dawlad goboleedyada arrimaha hor u socod kale ee ay ka gaareen dhanka siyaasadda waxaana la sheegay in la bogaadinayo wada xaajoodyada madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada haatan u soconaya qaramada midoobay qoraalka ka soo baxay ayaa waxa lagu sheegay in qaramada midoobay ay fahansan tahay in madaxda dawladdu ay qorsheynayaan inay sii wadaan wada hadallada iyo wada xaajoodka lagu xalinayo arrimaha khilaafaadka cakiran ee ka taagan dhanka doorashada waxaana la sheegay in lagu bogaadinayo in heshiis ay gaaraan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyadoo qaramada midoobay ay qirtay in wada hadalladu ay yihiin kuwa muhiim ah warka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in si aad ah loo dhiirigelinayo wada xaajoodyada haatan socda ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay garab taagan tahay arintaas isla markaana loo baahan yahay in laga dhabeeyo isla markaana la gaaro xal ku aadan arrimaha doorashooyinka si degdeg dalka ay doorasho uga dhacdo
warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii dambe uu isqabqabsi xoogan ka taagnaa arrimaha doorashooyinka isla markaana ay socdeen kulamo dhowr ah oo xal loogu raadinayay arrimaha siyaasadeed ee dalka ka taagan kuwaas oo ay ku kala aragti duwan yihiin hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana jira saaxiibada beesha caalamka oo iyagu cadaadis xoogan arrintan ku saarayay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada inay xaliyaan arrimaha hoose iyaga ka dhaxeeya si dalku uu gaaro in doorasho ay ka dhacdo isla markaana la xaliyo arrimaha khilaafaadka ah ee taagan waxaana qaramada midoobay ay bogaadisay arrimaha wada hadallada ee haatan socda iyadoo tilmaantay inay yihiin wada xaajoodyadu kuwa xal lagu gaari karo haddii ay dhamaadaanna ay noqon karto mid fashil ku keeni karta wada hadalladii muddooyinkan soo socday qaramada midoobay ayaa ugu baaqday in wada hadalladu ay noqdaan kuwa sii socda isla markaana aan istaagin waxaana ay tilmaantay in loo baahan yahay in haatan horey loo socdo oo la sameeyo isu tanaasul iyo wax walba oo lagu gaari karo in dalka ay doorasho ka dhacdo wada ogola madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isaga iyo sheekh shariif sheekh axmed ay ka badbaadeen isku day dil madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaar ah siinayay mid kamid ah idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaanna idaacada Kulmiye ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale shaqooyin isaga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka ku qabsaday gudaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in arrimaha siyaasadeed ee dalku ay haatan yihiin kuwa meel xasaasi ah maraya waxaana uu eedeyn kululna u jeediyay madaxda dowladda ee haatan waqtigoodu dhamaaday xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda qorshe ay soo abaabuleen oo ciidamada dowladda loogu adeegsanayay in qorshe dil ah lagu sameeyo madaxweynayaashii hore ee dalka ay ka badbaadeen waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ciidanka qaranka u adeegsanayo arrimo la xiriirta siyaasad isla markaana kalsoonida shacabka uu sheegay in ciidamadu haatan ay sii luminayaan sabab la xiriira in madaxweynuhu uu si kale u adeegsanayo ciidamada waxa uu sheegay in wiilasha Soomaaliyeed ee ciidanka qaranka ku jira ay yihiin kuwa niyad ahaan si aad u hooseeya isla markaana madaxweynaha aan u sheegi karin waxa sharciga ah iyo waxa kale aan sharciga ahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in nasiib darro ay tahay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweydkiisu uu dhamaaday uu ciidanka qaranka siyaasadeynayo waxaana uu sheegay in wiilasha qaranka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa geesiyaal ah isla markaasna sharciga loo baahan yahay in lagu hago waxaana uu ka hadlay in kalsoonida ciidamadu ay yihiin kuwa sareysa isla markaana shacabku ay si aad u jecel yihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sii hadlayay ayaa intaasi ku daray in dadka loo baahan yahay inay ka warqabaan arrimaha loo adeegsanayo ciidamada qaranka waxaana uu diray fariin adag oo ku aadan in ciidamada aan la siyaasadeynin dadka lagu dulminayo ciidanka ee lagu amrayo in ay qabtaan hawlo aysan shaqo ku lahayn waxaan kula dardaarmayaa inay arrimahaasi joojiyaan saraakiisha ciidamada dowladdu maalin walba waxaan aragnaa ciidamada dowladda oo la siyaasadeynayo xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkiisa intaasi ku sii daray in ciidamada dowladda loo adeegsaday in banaanbaxyo nabadeed oo ay ku baaqeen inay ka hor istaagaan isla markaasna waxa uu sheegay in loo baahnaa in ciidamada dowladda loo diro howlgallada gaarka ah iyo kuwa qorsheysan ee amniga lagu sugayo balse madaxda dowladda ee filla Soomaaliya haatan joogta ay si qaldan u adeegsanayso ciidamada dowladda waxaana uu sheegay in siyaabo kala duwan ay madaxda dowladdu haatan u adeegsanayaan ciidanka qaranka siyaasadna la gelinayo mas'uuliyadda saaran madaxda dowladdu ma gudanayaan waxaana ay sameynayaan arrimo aan loo baahnayn ayuu yiri xasan sheekh maxamuud waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in dowladdu ay haatan kala qobqobto ciidamada isla markaana ay u adeegsato arrimo ku saabsan siyaasadda dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageertay go'aan uu boqorka dalka Urdun oo xabsiga ku dhigay walaalkiisa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageero xoog leh u muujisay boqortooyada wadanka Urdun iyadoona si aad u taageertay boqorka wadankaasi oo xabsiga dhigay walaalkii oo dhaxal suga ahaa boqorka ayaa waxa uu xiray xubno uu ku jiro boqorka dhaxal sugaha ah ee walaalkiis ah amiirka lagu magacaabo Hamza bin Hussein boqorka ayaa ciidamada ku amray in xubnahani la soo qabto isla markaana xabsiga la dhigo oo xabsi guri la geliyo waxaana ku jira walaalkiis oo dhaxal suga ah qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya
ayaa waxaa lagu taageeray isla markaana si aad ah loogu muujiyay in dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay dowladda Urdun waxaana sidoo kale lagu sheegay in ay bogaadinayaan tallaabooyinka uu qaadayo boqorka wadankaasi Urdun Cabdallah Urdun iyadoo oo la eegayo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya boqortooyada Urdun iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan bogaadinaynaa tallaabooyinka dhowrka ah oo ay qaadayaan iyo go'aanada ay gaarayso dowladda wadankaasi Urdun ayaa lagu yiri warka qoraalka oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale boqortooyada Urdun waxa ay ku taageertay inay xabsiga galiyaan mas'uuliyiin dhowr ah oo ku jiro Amiir Hamza bin Hussein waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in dowladdu ay go'aankeeda qaadato isla markaana ay si aad u bogaadinayaan arrimaha tallaabooyinka dhowrka ah ee ay qaadayso isla markaana lagu tallaabsanayo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Urdun ayaana haatan la sheegay in xiriirkoodu uu yahay mid sii xoogaysanaya guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warsida TV waa naga inta ay nabadgelyo